bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal kusoo dhawaada warka tv-ga bandhiga qodobadaan idinkuga haynana waxaa ka mid noqonaya xubno ka tirsan midowda musharaxiinta oo lagu wado inay gaaraan magaalada Garowe, xiisado colaadeed oo ka taagan xadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Kenya, howlgallo dad badan lagu soo qabqabtay oo laga sameeyay deegaano dhaca koonfur galbeed Soomaaliya, taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka oo weli kormeer ka wada qaybo ka mid ah gobolka Mudug, iyo wasaaradda maaliyadda oo ka hadashay cashuuraha dalka iyo sidoo kale hadalkii dhawaan ka soo yeeray Xasan Cali Khayre. intaasi waxay ahaayeen qodobada wararka tv-ga bandhiga ugu door corona waana 26 bisha 12 sanada 2020. kusoo dhawaada warkii oo fidsan, laakiin waxaan idinka codsanayaa kahor intaan faahfaahinta u gudagalin in aad subscribe inoo saartaan, like-tana aad raacisaan mahadsanidin. xubno ka tirsan midowda musharaxiinta ayaa waxaa lagu wadaa in maanta ay gaaraan Garowe, iyadoo halkaa ay markaa kulmi doonaan madaxda kala duwan ee Puntland. waxaa ugu horeeya madaxweyne Siciid Dani, iyadoona xubnahaasi ay qayb ka yihiin Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo kuwa kale. xubnahan ayaa iyagu si toos halkaa waxay markaa ugu aadayaan arrimo quseeya xaaladda dalka, doorashada 2021 iyo qodobo kale. waxaan xusay in markaa xubnahan iyagu ay yihiin kuwa daneynaya in ay si toos ah Garowe u gaaraan, kulamana halkaasi ay madaxda ula qaataan. waa ararkii ugu dambeeyay ee soo baxay warbaahinta bandhigana ay helaysa waxay tibaaxayaan in xubnahani ay markaasi yihiin xubno midowda musharaxiinta qayb ka ah, isla markaana halkaa u tagaya arrimaha doorashada iyo qaabka loo wajihi lahaa. inkastoo warar kala duwan oo ina soo baxay ay sheegayaan Siciid Dani in uu ka doonayaba xubnahani wadahadalo gooni ah, taasi oo aan weli la sii shaacin. xiisado colaadeed ayaa waxa ay weli ka taagan yihiin qaybo ka mid ah xadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Kenya. xiisadaani colaadeed ayaa waxa ay weli ka taagan yihiin qaybo ka mid ah Kenya iyo Soomaaliya, waxaana mar ka dambeysay xadka Kenya iyo Soomaaliya la soo dhigayaa ciidamo kala duwan. waxaana soo dhigay labada dalka Soomaaliya iyo sidoo kale dalka Kenya, iyadoona labada dawladood ay yihiin kuwa markaasi laga cabsi qabo in isku dhac ku yimaado ciidamadaasi aad u tirada badan marka halka la gaarsiinayo. si gaar ah ciidamo aad u tiro badan ayaa waxaa la geeyay gobolka markaasi ama xadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Kenya, kuwa oo isla markiiba bilaabay dhoolatus military, iyagoona calamada Soomaaliya gacanta ku hayay, isla markaana dhoolatusyada ay sameynayeen uu ahaa mid markaasi ay ku soo bandhigayaan habka ay u tababaran yihiin iyo sida wadaniyada ay uga muuqato, waxaana ay qaadayeen heesa guubaabina. xilli Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore ee dalka uu ka soo yeeray hadal ku aadan in wadamada qaar ee caalamka dinafintii ay dib uga laabteen iyo kuwa kalena ay markaasi heshiiskii Soomaaliya ay la galeen ay iyaguna dib ula laabteen. ayaa arrimahaasi waxaa beeniye oo ka hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya. wasiir Bayle ayaa waxa uu shaaciyay inaanay waxba ka jirin oo uusan arkin wadan dib ula laabtay heshiisyadii Soomaaliya oo la galay ee dhanka maaliyadda, iyadoo sidoo kalena wasiir Bayle uu ka hadlay arrimaha canshuuraadka dalka. waxa wasiirka uu shaaciyay in wadamada uu heshiisyada la saxiixday qaarkood cudurro ka jira sida corona aawadeed ay markaasi waxa yiran yihiin ayna ka dhor sugayaan wax dib u laabashana ayna jirin, laakiin qorshaha haatan ay wadaan uu yahay sidii wadamadii hore ay heshiiska la saxiixdeen ay uga qaadan lahayd dawladda federaalka Soomaaliya. 45 milyan iyo 50 milyan 100 milyan bay siiyeen, waxay dhimayna ma jirto. hadda mid kale aan filaynaa mid wal oo lagu siyaabo wuxuu leeyahay intaasoo condition aad ka soo baxday. hadda processkii baan ku jiraa kaan doonayna in beginning of the year sanadku markuu bilaabana la siiyo conditionskii baan ku jiraa, beritaan zoom gelaynaa kaa marka la dhameeyana iyadana waan filaynaa. EUda 100 milyan oo beginningkiina siiyaan bar baa weli harsan, ayaguna bisha soo socota bilowgeeda ayay bixinayaan. wax joojiyeen ma jiraan, waxa weeyaan marba saan iskula falgalo ayuun bay tahay waxa ku saabsan yani isdoorto si fiican isku doorto wax meesha ku jirto dee halkan maalintii dhawada ku jireen waa la yiri, laakiin lacagta iyo isku xidhna maarta iyo sida wax socda. African Development lacagtii waa taalaaba yani waxa weeye arrin coronavirus iyo la xidhiidha, ayaguna waxay joojiyeen. anigu sheekada meel laga keenay runtii ma garanayo, sheekada meel laga keenay waa iska un malawaalka badan iska socda maarta. aniga afkayga ka qaad waxaan kuu sheegaya waxa weeye
sidaa aan u soconno haddaan istabci weyno lugaha iska qaniini weyno si fiican baa loo socdaa wax wanaagsanna waa la gaadhay qorshe fog ma jiraan marka su-aasha qorshaha fog aan ka warramo qorshaha wasaaradda qorsheynta ayaa ku shuqul leh ka fog oo dee dhismaha waddanka iyo national development planka ayaa arrintaa ka shaqeeya aniga qorshahayga kaa ku xidhan waxa weeyaan cashuurta horta dan waliba wuxuu faa'iido ku leeyahay ku muuqan karaa waxa weeye wuxuu isagu qabsado waxaa dad kale ugu qabtaan wuxuu isagu xataa dad kale hadday ku qabanayaan inay loan kugu noqoto ood iska bixiso sidaasaa madaxaagu sarreeya ya marka aniga qorshahayga waxa weeye in cashuuraheennu markaad GDP-ga u eegto GDP-ga ka hadlaysan waa 2 iyo 3% weeye normally adduunka waa 5 iyo 16% weeye waad arki kartaa markaa intaan socon karno waxaa jira meelo fara badan oo cashuur waajib ku tahay weli la bixin waxaa jira meelo badan oo cashuur waajib ku tahay oo in yar oo tookana laga qaado ayaa jira si kastaba hadalkan ayaa waxa uu imaanaya kadib markii ra'iisul wasaarihii hore ee dalka shir uu qabtay uu kaga hadlay in markaa Soomaaliya dadaalo badan oo loo sameeyay heshiisyo badan oo loo soo xiray aawadi ay dib ula laabteen wadamadii heshiisyadaasi laga soo xiray kadib dadaal kale oo loo geli waayay sidii loo soo xiri lahaa wadamadaas inkastoo gaashaanka uu u daruuray wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka ayaa waxaa lagu soo waramayaa in weli uu kormeer ka wada fariisimada ciidamada xoogga dalka ay ku sugan yihiin ama kaga sugan yihiinba dhuusamareeb jenaraal maxamuud tahliil biixi ayaa gaaray goobo fara badan oo markaasi ku yaala gobolka mudug iyadoona ay joogeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxaa kormeerkiisa uu ku qutumay sidii uu soo ogaan lahaa xaaladda ciidamada waxaana ciidamada dhammaantoodba uu ku bogaadiyay in ay shacabka dhibaateen maadaama shacabku ay yihiin kuwa mas'uuliyadooda loo dhiibay oo iyagu in ay garab siiyaan loo baahan yahay jenaraal maxamed tahliil biixi oo la hadlayay ciidamadii uu ku booqday dhuusamareeb isla markaana iyagu waqtigaasi shaqadoodii ku jiray ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa uu ku yiri sida tan dadka shacabka oo u adeegayno u nimidna hal amaan geliyo hal tuso inaan ayaga u shaqaynayno u dhimanayno waa ceeb annagoo ayaga u dhimanayno dalkayna u dhimanayno in dadka shacabka naga soo eed sheegto ama kuwa aan dariska idinla ahaadeen ama markaan hawlgalka gallo kuwa aan dhex mari doonno ha ahaadeen intaba dadka shacabka ah waa walaalihiin hal soo dhaweeyo cadawga dadka shacabka la dagaalama oo cadawgii baana ka dulqaadaynaa marka haddaan annagu la dagaalano soo laba cadow ma noqonayno oon dhibaatayno cadawga naga soo horjeeda ee al-shabaab wuxuu dadka ku sameeyaa dhibaatooyin iyo culays dadku xamili waayey ummadii Soomaaliya oo qof walba leeyahay oo dadku waana dhibaana naga qabta wiilka yarka oo 10 jirka waa ka kaxaysanayaan gabadha waa ka kaxaysanayaan dadkaas meesha jooga xoolaha ay haystaan bay ka qaadanayaan cunnada ay haystaan bay ka qaad maxay kale ku nool yihiin intaasay ku nool yihiin waa dadka dhiigooda ay cabahayaan annagu dadka dhiigooda waa inaan u badbaadinaa oo waliba madaxaad u salaxdaan oo hooyada ooman aad biyo siisaan oo sonkor siisaan intaasna waa laydinka rabaa warki oo aad ka daawanaysan TV-ga bandhiga akhyaarta aynu jecelnahay oo inaga intaa warka waxaa idin la socodsiinaya anigoo Ibraahim Sheekh Xuseen Sheekaye waxaa farsameynaya saaxiibkii Carab idinna waad ku mahadsantihiin daawashada warka TV-ga bandhiga